بسم الله الرحمن الرحيم ومهسنتين دمانتين waxaa runtii sharafna waa inaan maanta nimid magaalada Kismaayo caasimada ku meel gaarka ah dawlad goboleedka Jubbaland waxaan u nimid shirka wasiirada arrimaha gudaha ee dawlad goboleedyada iyo dawladda federaalka ee uga socda magaalada Kismaayo kaas oo ka furmay saaka magaalada Kismaayo annaguna hawlo jira aan uga daba nimid isla mar ahaantaana lagu dhowrka maalmood soo socda ka socon doona magaalada Kismaayo taasoo kamid ah barnaamijyada wasaaradda arrimaha guduhu ay wado ahna in dawlad goboleedyada lagu qabto dhammaan shirarkii iyo workshopyadii iyo lagu qaban jiray wadanka dibadiisa in lagu qabto dawlad goboleedyada sida Kismaayo, Baydhabo, Cadaado, Garowe, Muqdisho iyo meelihii kale lagama maarmaanka noqota sida Beledweyne iyo Shabeellada dhexe shirkaasi ayaa halka ka socda sida ogtiin shirka ayaanu qayb ka nahay dhammaan wasiiradii dawlad goboleedyada dalkuna waxay joogaan magaalada Kismaayo oo ay yimaadeen shalayto shirka ayaanu runtii qayb ka nahay shirka waxaa soo wada qaban qaabiyay wasaaradda arrimaha gudaha ee federaalka iyo hay'adda CDI ama Conflict Dynamics la yiraahdo waxaa martigeliyay wasaaradda arrimaha gudaha iyo amniga dawlad goboleedka Jubbaland run ahaantiina waa uga mahadcelinaynaa madaxweynaha dawlad goboleedka Jubbaland oo shalay toole si aada u soo dhaweeyay waftiga qada u sameeyay isla mar ahaantaana iyaga iyo dadkii ajaanibta ay la socdayba aad ayaan ugu mahadcelinaynaa gaar ahaan wasiirka arrimaha gudaha iyo amniga ee dawladda Jubbaland iyo mas'uuliyiinta kale wasaaradda iyo guud ahaan dawladda iyo shacabka reer Jubbaland si gaar ah waxaan ugu mahadcelinayaa telefishinka Jubbaland halkan Kismaayo ka howlgala oo runtii si aad u qurux badan u tabinayay wixii ka dhacay waftigu ilaa markay yimaadeen iyo guud ahaan hawlaha ka socda Jubbaland oo dhan warkeena waa noo dambayn doonaa waa ku mahadsantiin inaan soo dhaweyseen waa ku mahadsantiin inaan halkan idin kula kulanno waana ku faraxsanahay inaan joogno caasimadii ku meel gaarka ah ee dawlad goboleedka Jubbaland aad ayuu mahadsantiin hal su'aal la weydiiyo shirkan amniga teelaga ayuu leeyahay markii uu horeysay in Kismaayo uu martigeliyo dhammaan dawladda ama dawladda dhexe Soomaaliya midna uu fadhiyo ahmiyad weyn buu ugu fadhiyaa wax weyn horta wasiirada arrimaha gudaha ee dawlad goboleedyadu dhammaan inay isuguna yimaadaan meel ka mid ah dalka Soomaaliya Jubbaland ay noqotay meeshii nasiibka koowaad u yeelatay inay wasiirada arrimaha gudaha dawlad goboleedyada oo dhan iyo dawladda federaalka ay halka isugu yimaadaan runtii ahmiyad weyn bay tahay waxay muujinaysaa midnimada isku xidhka iyo wada shaqaynta ka dhaxaysa dadka Soomaaliyeed barnaamijyo badan oo ah daadejinta maamulka oo ah maamulku inuu dawladda federaalka ka yimaado dawlad goboleedka yimaado ka sii tago degmooyinka iyo tuulooyinka taga ay qorsheeyo sidoo kalena waxay tahay in barnaamij la yiraahdo wadajir laga wada shaqeeyo oo dadka Soomaaliyeed uu wada leeyahay in la hirgeliyo oo aanay noqonin laga saaro runtii waxyaabihii hore u jiray oo ahaa dawlad goboleedyada iyo dawladda dhexe inuu conflict ka dhaxeeyo isriix ka dhaxeeyo dawlad goboleedyada laftirkooda xoogaa xurgufa ka dhaxeeyaan waxaas oo inaan meesha ka saarno oo wasaaradda arrimaha gudaha ay aad uga howlgashay waxaan u mahadcelinaynaa dhammaan dawlad goboleedyada gaar ahaan madaxweynayaasha oo runtii qaatay leadershipkaas gacanna naga siiyay hawsha in lagu guuleysto sidoo kalena wasiirada arrimaha gudaha ee dhammaan dawlad goboleedyada oo runtii iyaguna hoggaanka u qabtay barnaamijka hirgelintiisa shacabka guud ahaan Soomaaliyeedna waxaan u rajaynaynaa inay midoobaan gacmaha isqabsadaan waxna qabsadaan barnaamijka abaaraha oo runtii aad culays ugu haya dalka Soomaaliyana laga wada qayb qaatay gudaha iyo dibadba run ahaantii abaarahaas oo saameeyay dalka Soomaaliya oo dhan gudaha iyo dibad baalkii meel kasto ay tahay gobol kasto ay tahay waxaan rajaynaynaa dadka Soomaaliyeed dhibaatada waxay kaga bixi karaan Ilaahay baa ka saari kara haddana waxay kaga bixi karaan waxay iyagu istaraan bay kaga bixi karaan wax cid kale ay ka sugeen maanta qofka dhibaataysan marar badanna waa ay waxba uma tarayso hal su'aal aan jeclahay inaan weydiiyo ummadda Soomaaliyeed daayirkeedu waxay u baahatay badaha mar haddii wasaaradda arrimaha gudaha isku imaadeen
فدرال كيبا برشا مسألة كل وزارة إن أرمها لها حظ ما دام داير أقوانت لحد موضوع حكم الله عبادة runtii waa nasiib darro dad intaa leego Soomaaliyeed inay ku dhintaan badaha ayagoo u tahriibaya wadan kale waxaan rabaa dadkaasi haddii inta dibadaha geeyo la soo celin lahaa ma aysan mar labaad isku biimeeyeen because dibadda waxa yaaleen Norway waxaan rabaa inaan ku daro hal qodob oo muhiim ah caalamku viisahan iyo dadka tagitaankiisa ee wadamada ay u socdaan la adkeeyay ayaa keenaya in lagu baaboobo haddii la fududayn lahaa dadku ay si sahlan u tagi lahaayeen dhibaato ma jirteen waxaan rabaa dadka Soomaaliyeed haddii fiisaha Soomaaliya lagu yimaado ama Afrika lagu yimaado la adkeyn lahaa oo saas looga adkeyn lahaa ayaga badda ku soo dhamaan lahaa marka dadka Soomaaliyeed iyo caalamka iyo Afrikaba waa inay ogaadaan haddii fiisaha Afrika lagu imanayo ama Soomaaliya lagu imanayo ama guud ahaan Afrika lagu imaanayo ee freega ah ee qofka caalamka uu airport markuu yimaado laga siinayo lagu adkeyn lahaa way soo tahriibi lahayn badda Afrika loo soo tahriibi lahaa looma tahriibeen banaanka Afrika loo soo tahriibi lahaa aad baa u mahadsantihiin